السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا اف سي تي في برنامجka caawa waxaan ku soo qaadanaynaa hagardaamada dowladda Imaaraadka Carabta ay ku hayso dalka Soomaaliya. Dowladda Imaaraadka ayaa waxay ku haysaa Soomaaliya hagardaamo aad u weyn. Dowladda Imaaraadka waxay u soo bareertay in ay faragelin ku samayso dowladnimada Soomaaliya. waxay ka soo bilowday maamulka gooni sutaaga ee Somaliland ayadoo heshiis la gashay kaasoo heshiiskaas ku saabsanaa dekedda Berbera ayadoo waliba 19% ka siisay dalka Ethiopia. waxay u soo gudubtay dekedda Boosaaso oo heshiis la gashay maamulka Puntland taasoo uu ahaa heshiis maaragtay ay doonayso inay Soomaaliya ku qaybiso oo ay ku laalushto madaxda reer Puntland. kadib waxay heshiis la gashay maamul goboleedka Jubbaland waa 3 dekedood oo waaweyn oo dalka Soomaaliya ah. macnaha deked ma rabtay waxay u socotaa in dalka Soomaaliya ay kala qaybiso oo ummadda Soomaaliyeed ay dhibaato geliso. sidaan la soconno madaxweyne Deni iyo dowladda federaalka waxaa ka dhaxeeya khilaaf aad u weyn kadib markuu Deni uu diiday inuu la shaqeeyo dowladda federaalka isagoo hogaamiye ka ah maamul goboleedka Puntland ayuu wuxuu go'aansaday inuusan marna la shaqeyn dowladda federaalka isagoo raacaya tilaabooyinka iyo amarada ka imaanaya dowladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta Soomaaliya waxay rabtaa inay dhaxal siiso sidii ay u gashay Liibiya, Yemen iyo Suudaan. dowladda Imaaraadku Liibiya sidaa ayay u gashay dagaal xoog leh ka riday waa isku dirtay qarash ay ku bixisay. Yemenna waxay gelisay dhibaato daba dheeraatay iyo baaba iyo dagaal la sokeeyay. dalka Imaaraadku wuxuu u soo jeestay daadinta dhiigga ummadda bini'aadanka oo dhan meel allaala meeshii uu ka helo jileec inuu baabiyo ayuu ku talagalay. Yemen, Soomaaliya, Liibiya, Suudaan waa 3 dal oo islaam ah. marka waxaa la isweydiiyey waa maxay macnaha dowladda Imaaraadku ay waxaan oo dhan u sameynayso. maxay doonaysaa dowladda Imaaraadku? waa maxay danta ay leedahay dowladda Imaaraadka oo ay dhibaatooyinkan u geysanaysaa? haddaba sidaan la soconno ninka la yiraahdo Axmed bin Suleymaan ka ahaa CEO-ga shirkadda weyn ee DP World dekedaha Soomaaliya qabsatay ayaa waxaa la helay sir uu la wadaagayay iyo xiriir uu la lahaa ninkii isdilay ku caan baxay inuu maaragtay caruurta qasho oo caruurtana uu kufsado ninkii ku caan baxay ee ahaa Epstein. emailadiisa ayaa waxaa laga helay Maxamed bin Suleymaan oo leh waxaan jeclahay dadka la toojar garaynayo, dadka la dhibaataynayo, la jir dilayo oo la googoynayo inaan fiirsado ayaan jeclahay. maadaama aan kulmayno maxaa ka qabtaa inay la fiirsatid? u fiirso. Imaaraadkii ayaa waxa uu leeyahay ninkaan arkaysaan Deni la taagan ayaa wuxuu leeyahay waxaan jeclahay inaan fiirsado dadka la xasuuqayo, dadka jirkooda la jarjarayo ayaan doonayaa inaan fiirsado. waxaan doonayaa inaan ogaado maxaa ka qabtaa inay la fiirsato. markaasuu yiri sure waa ii imaan kartaa, waa ila daawan kartaa, waa kula daawan karaa. waa ninka cadaanka ninka isdilay ninkan isagoo la jooga waa Axmed wuxuu maaragtay Soomaaliya dhex dhigay khilaaf. Axmed bin Suleymaan waa nin jecel in dadka la jarjaro oo la dilo. waa uu ku raaxaystaa entertainment bay u tahay. madaxweyne Denina
ninka sidaasa iyo dowladdiisa iyo shirkaddiisii ayuu maaragtay ka amar qaataa. axmed bin suleymaan markii la ogaaday sirtaas adduunka dhan waa looga kacay. shirkaddii xiriirka waddamo fara badan u jareen ay ka mid yihiin Canada iyo Ingiriiska. shirkaddii markii hoos u dhaca ku yimid ayaa shirkadda iyadoo la badbaadinayo baa waxaa maaragtay laga codsaday inuu iscasilo maadaama la rabo shirkadda hawleed inay sii socdaan. wuu iscasilay laakiin waa nin shirkadda wax ku leh, wuu joogaa weli board memberku ka mid yahay. madaxweyne danina ninkaas ayuu la shaqeynayaa, waana ninka dagaalada aa aragtay ka riday Libiya, Yemen, meesha la yidhaahdo Suudaan. Soomaaliyana haddeer midaan la iskugu aruursanayo ayuu maaragtay doonayaa inuu Soomaaliya isku baabi'iyo. madaxweyne deni marka ma noqon doonaa madaxweyne ciidamadiisa ka horgeeya ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada Soomaaliyeed in soo amar ka qaadanayo ninkan dhiigga cabka ay ku raaxaysta dhiigga dadka la daadiyo, oo weliba loo malaynayo inuu yahay dadka shaydaanka caabuda ee maaragtay dhiigga dadka in la daadiyo jecel oo shaydaanka dartiis u daadinaya dhiigga dadka. ciidamada Puntland waxay u diyaar garoobayaan dagaal. waa kala qaybsameen ciidamada Puntland. cabsi weyn ayaa jirta oo ah dagaal sokeeye inuu ka dhaco waddanka imaaraadka dartiis. haddaba hagardaamada dowladda imaaraadka ku hayso dadka iyo dalka Soomaaliyeed ma laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan? ma u malaynaysaa dhalinyarada ciidanka ee Soomaaliyeed inay war ka hayaan xiriirka madaxweyne deni iyo imaaraadka carabta iyo ninka dhiigga cabka? ma u malaynaysaa inay ka war hayaan Somaliland iyo ninkan xiriirka ka dhexeeya inay og yihiin dadka Soomaaliyeed ama dadka reer Somaliland? macnaha maxamed bin suleymaan waa nin caddaystay oo lagu og yahay isku dirka iyo maalgelinta dagaalada sokeeye. ninkaa maalgelinaya dagaalada sokeeye ayaa maal gashtay dekedda Boosaaso iyo Berbero iyo Kismaayo. 150 gaari oo kuwa qoryaha la saaraa iyo hub ayuu ka dejiyey magaalada Kismaayo sanadkii hore 2025 bilowgiisi. madaxweyne xasan sheekh waxba kama qaban DP World, ma dacweynin, ma la geynin maxkamadda adduunka, dacwo lagama xarayn. xadgudub inay dalkeena kusoo xadgudubtay inay faragelin ugu hayaan lama sheegin weli. madaxweyne xasan sheekh waa ka gaabiyey arrintaas. maanta waxay maraysaa in wiilashii Soomaaliyeed hubka la isugu soo dhiibo dhiiggooda uu daato. ninkaana carabkaana uu filin ka fiirsado dhiiggaas daadanaya uu ku raaxaysto. madaxweyne denina xoogiisa yarka gacanta laga saaro. macnaha waxa baaba'aya waa dhallinyaradeenni oo meesha ku dhimanaya sida ay u dhinteen dhallinyarada Libiya iyo dhallinyarada Yemen ay u baaba'een. macnaha ninkan carabka maxamed axmed bin suleymaan waa ninka keliya gaalka u geeyey ama gaalka gurigiisa ku booqday kabcada go-i lagu guglayay inta lasoo goostay loo keenay ayuu maaragtay dul taagan yahay sida arkaysaan. waa nin ka tirsan qolada shaydaanka caabuda ee dhiigga dadka ka ganacsata ee ummadda inta la laayo shaydaanka laga farxiyo kadibna shaydaanka uu siiyo awood iyo lacag fara badan iyo hanti. baaba'aa shacabka islaamka shaydaanku wuu rabaa
yeman libiya suudaan soomaaliya maxaa isu keenay waxaasoo dhan in la maalgeliyo dhimashada dhallinyarada muslimka ah inay isdilaan shaydaanka ayaa ku farxaya dadka soomaaliyeed baaba'aas iyo dhibaatadaas ayaa lala rabaa caawa hubka waxay u aruursanaysaa puntland inay kula dirirto dowladdii federaalka ahayd wiilasha lala dirirayo waa wiilashii puntland wiilasha kale oo lala dirirayana waa wiilal soomaaliyeed oo qabiilo fara badan ka socda soomaaliyeed caalamku waa ka soo horjeestay nimanka la yidhaahdo DP World xargahana loo jiray Canada Britishka UK si temporary assessment u saareen ayaan dhexdaasa markuu iscasilayna kolley waa laga qaaday sababta ay saas u dhacdana waxay tahay dhiigii cabnimadiisa ninka sidaa dhiigii cabka u ah ayaa madaxweyne Dani saaxiib leeyahay gaadiidkana iyo hantida iyo hubka iyo wax dhanna siinaya ninkan waxa uu rabo oo kaliya waxay tahay in dadka Soomaaliyeed islaayaan dowladda Imaaraadku waxay ku jirtaa shaydaan caabudka waxay wadaan yuhuud oo u keeneen Somaliland oo ay yiraahdeen Soomaaliya hala kala qaybiyo hala isdilo hala islaayo Ethiopia ayaa ka xishootay oo faraha kala baxday sheerkeedii 19 ahaa maanta dekada berbera 65% waxa iska leh Imaaraadka 35 waxa iska leh ee Somaliland maxay faa'iideysaa Somaliland 35% 65 ay leedahay DP World nimanka dhiiga bini'aadanka raba inay ka ganacsadaan nimanka raba dhiiga bini'aadanka inay ku raaxaystaan ay dhimashada iyo dadka Soomaaliyeed dhiigooda nimanka raba inay ku raaxaystaan marka ay la fariistaan oo xafiisyada ay la fadhiyaan Dani iyo asxaabtiisa madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo madaxweynaha Puntland iyo waxa ay soo fadhiya ninka yiri dadka bini'aadanka oo la jarjarayo la dhibaateynayo la xasuuqayo ayaan ku raaxaystaa oo entertainment ahaan u fiirsadaa waana shaqada uu hayo oo Liibiya uu ka qabtay meesha la yiraahdana uu ka qabtay Yemen ma kula tahay nimanka argagixisada Soomaaliya joogtana inuu asaga yahay ninka lacagta siiya oo maalgeliya waa macquul dowladda Carabta waxay noqdeen dad aan lagu kalsoonaan karin dhibaato fara badan ayaa ka timid dadku waa dadkii hanaqaanay ma lacagta waa lagu halaabaa hanti jaceelkii dartii ayay sidaan u sameynayaan burburka ay dhibaatada waxay lacag isugu dhiibayaan dad yoo gaajeysan iyo dad yoo tuuga ah iyo dad mooriyana ay waxay rabaan ka sameysanayaan lacagna siinayaan wiilashaasna la isku baabinaya Soomaaliyana waxa la rabaa sidaas oo kale in loo galo marka madaxweyne Dani maxaa la gudbo madaxweyne Dani ma waxa tala iyo maaragtay aqligiisa oo dhan uu ku simay inuu iibsado wiilasha Puntland oo dagaal iyo xasuuq u galiyo dhexdooda iska hor keeno oo islaayaan ama kuwa federaalka ee isla dhacaan waa maxay sababta ku kalifaysa inuu waxaas oo dhan sameeyo dhibaato aad u xun ayaa meeshan ka jirta dalka Soomaaliya sheekadiisu way daba dheeraatay mid cusub ayaana furmaysa mana ahan mid loo dul qaadan karo in maanta dadkii Soomaaliyeed hub isku qaataan oo waxaas hubal rarayo loo wada dad Soomaaliyeed isku laayaan dhiigooda lagu daadiyo sababtoo ah ayadoo laga farxinayo ninkan shaarbaha weyn leh qofka xunka arkays ayaa laga farxinayaa lacagtiisa darteed ayaa looga farxinayaa oo loo dilayaa kumanaan Soomaaliya kumanaan Islaama kumanaan Libyana kumanaan Yemeniyiina kumanaan Suudaana iyo kumanaan Soomaaliya maxaa kalifaya adduunyada maanta inay sidaa ahaato oo maaragtay la hoos tago Imaaraad ma waxa la waayay wax iska dhiciya ma waxa la waayay wax maxkamad horgeeya wax dacweeya
aawa caqligii farsamo ma la waayay laysaga difaaca nimankan dalkeenna gacanta kula jira aaway waxgaradkii puntland aaway waxgaradkii gobollada waqooyi soomaaliya axmed madoobe iyo jubbaland aawa dadkii maxaa ku dhacay dowladda soomaaliya waa la kala jarjaray maamul goboleedyadii heshiisye la galeen nimankan gooni bay ula baxeen waddankii faragelin xoogley ku hayaan barnaamijka intaas ayaan kusoo koobayaa waxaana dareemaynaa in soomaaliya dibindaabyo xoogle lagu hayo dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay indhaha kala fura ciidamada iska hor imaanayana waxaan leenahay ogaada waxa u dagaalamaysaan puntland maaha waxa u dagaalamaysaan waa imaaraadka carabta ayaa difaacaysaan ee difaaci maysaan puntland aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah farxaan ciro noo sheer gareeya barnaamijka laag saara na soo follow gareeya sidaa iyo nabadgelyo